laga helayo magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose ahna xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegayaan in guud ahaan amniga magaalada Kismaayo ee maanta la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka Jubbaland. magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda maalmihii la soo dhaafay diyaar garowga lagu jiro doorashada madaxweynaha Jubbaland, waxaana hay'adaha amniga maamulkaas ee shaaca ka qaadeen inay amniga weyn u xaqiijin doonaan. maanta ayaa waxaa amniga Kismaayo si rasmi ah loogu wareejiyay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Jubbaland, waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in amniga Kismaayo aan gorgorta la gelin isla markaana ay xaqiijin doonaan. ciidamo wata qaarkood gaadiidka dagaalka ayaa waxaa saaka lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo xaafadaha qaar, waxaana dad ku sugan magaalada Kismaayo idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho u sheegeen in markaasi mararka qaarkood ay ciidamada ka tirsan kuwa booliiska Jubbaland oo wata gaadiidka dagaalka ay baaritaano markaas ku sameynayaan qaar ka mid ah dadka wadooyinka maray iyo gaadiidka, isla markaana ay dadka shacabka u sheegayaan inay amniga sugitaankooda qayb qaataan maadaama la filayo in dhamaadka bisha Agoosto ay soo socota ee sanadkan 2019 magaalada Kismaayo la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. qaar ka mid ah musharaxiinta Jubbaland ayaa hore waxay u dhaliileen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyagoo ku eedeeyay inuu cabrin ku hayo shacabka iyo hay'adaha kala duwan ee maamulkaas, waxaan musharaxiinta qaarkood ay sheegeen sidoo kale inuu sameystay guddi gaar ah kuwaas oo madaxweyne Axmed Madoobe u xaqiijinaya si mar kale uu guuleysto xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. magaalada Kismaayo ayaa maanta waxay ka duwan tahay maalmihii la soo dhaafay, waxaana lagu arkayaa ciidamo wata gaadiidka dagaalka gaar ahaan kuwa booliis ah oo taagan xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn. taasna waxa ay ka dambeysay kadib markii maalmihii la soo dhaafay wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ee shirar gooni ah la yeelanaysay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ee ku sugan magaalada Kismaayo iyagoo u diyaar garoobaya sugitaanka amniga doorashada madaxweynaha Jubbaland. waxaan laga xasuusanaa macluumaadinta ka badan inaan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka dhacdooyinka caawa. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen in magaaladaas laga dareemay qalqal xoogan, isla maanta magaalada iskaga baxeen musharaxiin badan oo la tartamayay madaxweynaha Jubbaland kuwaasoo qaarkood aaday magaalada Nairobi. xubnaha Kismaayo iskaga baxay musharaxiintan waxaa kamid ahaa xildhibaan Xidig Cabdirashiid Xidig oo kamid ah xubnaha musharaxiinta ee u tartamay xilka madaxweynaha. waxaa la sheegay in ka magaalada Nairobi waa xubno kale musharaxiin ah ay u soo jiheysteen magaalada Muqdisho. qalqal xoogan ayaa ka jira halkaas, waxaana laga baqdin qabaa in ciidamada taabacsan madaxweynaha Jubbaland la wareegay guud ahaan magaalada lana geeyay airportka iyo meelaha kale ugu muhiimsan. faahfaahinno iyo xogo inta ka badan iyo macluumaadyo ku saabsan madaxweynaha Jubbaland oo qudhisa ila xogaal halka ku sugan ay noo sheegeen in madaxtooyadu ka guuray una degay meel duleedka ka magaalada. barnaamijka dhacdooyinka caawa ayaad ku dhageysan doontaan faahfaahinno iyo wareysi arrimaha quseeya. qodobada kale wararkeena ka harayna waxaa qayb ka ah magaalada la yiraahdo Garowe caasimadda Puntland waxaa ku qulqulaya mas'uuliyiin kala duwan, waxaana gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno kale saacadihii ugu dambeeyay, iyadana xubnahan la tilmaamay inay ka qayb geli doonaan munaasabad ka dhici doonta halkaas oo ah aasaaska Puntland. magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal waxaa saacadihii la soo dhaafay ku qulqulay wufuud kala duwan kuwaas oo la filayo inay ka qayb gali doonaan munaasabada dabaaldega sanad guurada 12aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay Puntland. shalay magaaladaas waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, halka maantana uu gaaray ku-xigeenkiisa waa ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Nuur waa Abshir Nuur Buqaari. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in sidoo kale madax ka socda waa ku-xigeenka gudoomiyaha labaad ee aqalka sare. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in sidoo kale madax ka socda dowlad goboleedyada iyo xubno kale oo ka socda beesha caalamkaba ay gaareen magaalada Garowe si ay kaga qayb galaan munaasabada 1 Agoosto. ammaanka magaalada ayaana si weyn loo adkeeyay, waxaana xaafadaha wadooyinka qaar la dhigay ciidamo fara badan oo amniga ilaalinaya. dhinaca kale taliska booliiska Puntland waxa ay soo saareen amaro la xiriira dhinaca amniga iyo sida amniga ay soo saareen laga bilaabo waxay 5 galabnimo ilaa iyo 10 subaxnimoba ama barqamnimo magaalada Garowe lagu arki garin wax gaadiid ah oo dadka caadiga ah, waxayna sheegeen kaliya gaadiidka magaalada la ogolyahay yihiin kuwa mas'uuliyiinta isticmaalayaan. sanad ka hor munaasabada lagu dabaaldegay aasaaska Puntland ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. xilligan
oo xilligaa uu madaxweyne ka ahaa madaxweynaha puntland cabduuli gaas inkastoo aan la ogeyn madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba in midkood uu ka qaybgeli doono munaasabada ay tegi doonaan iyo in kale. wararkana kalena waxyaabaha ka haray waxaa kamid ah cadaado xaggeeda haddii aan eegnase odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada cadaado waxa ay sheegeen ama gaashaanka u daruureenba inaysan ka qaybgeli doonin shirarka wadatashiga ee la qorsheynayo ama lagu dhisayba galmudugta cusub ee dhuusamareeb inaysan ka qaybgeli doonin. rijaal cabdi maxamed yaa sii dhamaystiraya. kulan maanta ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug islamarkaana ay ka qayb galeen guddiga dib u heshiisiinta maamulkaas iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya guddiga dib u heshiisiinta iyo sidoo kale waxgaradka magaalada cadaado xilli waxgaradkaas maalmihii ugu dambeeyay ay si weyn kaga soo horjeedeen ololaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo uu ka waday magaalada dhuusamareeb. waxgaradka magaalada dhuusamareeb ayaa markii kulanku uu soo dhammaaday qaarkood waxay xaqiijiyeen in guddiga ay isla garteen in waxgaradka magaalada cadaado aysan ka qaybgelin shirka dib u heshiisiinta ee 5 bisha soo socota ka furmaya magaalada dhuusamareeb haddii aan la tixgelin cabashooyinkii ay qabaan oo qayb ay ka tahay in doorashada baarlamaanka galmudug lagu qabto magaalada dhuusamareeb magaalada cadaado oo ay sheegeen inay tahay xarunta baarlamaanka maamulka galmudugga. odayaasha dhaqanka iyo guddiga dib u heshiisiinta kulankii u socday ayaa kusoo dhammaaday isfaham waa iyadoo guddiga dib u heshiisiinta lagu wado inay maanta isaga baxaan magaalada cadaado islamarkaana ay u jahaystaan dhanka magaalada dhuusamareeb halkaas oo madaxda uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dalka ay la wadaagi doonaan aragtida ku aadan in qaar ka mid ah beelaha degan deegaanada galmudug ay si weyn kaga soo horjeesteen inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta ah ee 5 bisha soo socota ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugga. odayaasha dhaqanka ee magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale degmada xeraale ayaa qaarkood horey u sheegay inay ka qayb galayaan shirka magaalada dhuusamareeb waxaana guddiga dib u heshiisiinta booqashooyinka ay ku tagayeen magaalooyinka qaarkood ay sheegeen in bulshada deegaanada ay tageen qaarkood ay aqbaleen halka reer cadaado ay iska diideen inay ka qayb galaan shirkaasi. dabashada reer cadaado ayaa weli taagan waxaana ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha labaduba ay kaga baxeen ballanqaad ay hore ugu sameeyeen islamarkaana aysan aqbali doonin inay tagaan dhuusamareeb. wararka la xiriira arrimaha dhimasho shil diyaaradeed ka dhacay bakistan ayaan eegi doonaa laakiin soomaali ku biri lehda kooxda daacash ee ka dagaalanta dunida inteeda kale aan ku celiya halkan. soomaali ku biri lehda kooxda daacash ee ka dagaalanta dunida inteeda kale ayaa waxaa lagu qabtay dalkaasi mareykanka waana dhalinyaro soomaaliyeed. maxamed cabdiraxmaan ayaa sii dhamaystiraya. ciidamada FBI-da Mareykanka ayaa xabsiga dhigay 2 wiil oo Soomaali ah kuwaasi oo qorsheynayay inay ku biiraan Daesh. labadan wiil ee Soomaalida ah ayaa Mareykanka waxay ku joogeen arrimo qaxootinimo ah waxaana la qabtay iyaga oo doonayay inay u dhoofaan dalka Masar halkaasi oo ay kaga sii gudbaan Daeshta joogta wadankaasi. FBI-da ayaa isniintii shaacisay xarigaan wiilasha muddada 2 bil ah la qorsheynayay safarkoodana ay doonayeen inay ku tagaan dalkaasi Masar waxaana FBI-da ay sheegtay xogtan inuu siiyo qof si qarsoodi ah ula shaqeeya hay'adda FBI-da oo la wadaagay dhaqdhaqaaqa safar sida ay sheegtay maxkamadda loo gudbiyay. labadana wiil ayaa xilliga ay doonayeen inay safraan dalkaasi Masar Daeshna ay kaga biiraan ayaa magacyadooda waxaa lagu kala sheegay Axmed Mahad Maxamed oo 22 sano jir ah, Cabdi Yaman Xuseen kuwaasi oo midkooda hore green card-ka ku jooga dalka Mareykanka halka kan dambana oo qaxooti ahaan uu ku jooga dalkaasi. qorshaha raggaani waxaa la sheegay in uu ahaa in ay noqdaan rag argagixiso caan ah isla markaasina dadka dila kuwooda dadka qoorta ka gooyina ay noqdaan. sida xogtan lagu helay ayaa waxa ay tahay in bishii 8 ee sanadkii la soo dhaafay ay qof saaxiibo ay yihiin internetka ay ugu sheegeen inay qorsheynayaan inay noqdaan Daesh balse ay qofkii ay siiyeen xogtaasi oo ku noqday qof sirdoon ah oo u shaqeeya FBI-da Mareykanka. shil qasaaro nafeed geysana maanta waxa uu ka dhacay magaalada caasimada muqdisho toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa kusii kordhaya shilalka gaadiidka ay geysanayaan oo dadka shacabkuna waxyeelo ay ka soo gaarayso. Faysal Cabdi Warsame ayaa warbixintan faafahinaysa.
inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa geeriyooday kadib markii gaari hoomey iyo mooto bajaaj ay isku dhaceen inta u dhaxeysa isgoosyada howlwadaaga iyo bakaaraha ee magaalada muqdisho ruuxa dhintay ayaa goobjoogayaal waxay inoo sheegeen inuu ahaa wada mooto bajaaj iyada oo darawalka gaariga shilka geystana uu goobta ka baxsaday goobta uu shilka ka dhacay ayaa ah meel mashquul badan oo mararka qaar ay dadka gawaarida ku sugaan waxaana halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya hase yeeshee ma aysan ku guuleysan inay qabtaan darawalka gaariga shilka galay watay daqiiqado kadib waxaa goobta sidoo kale gaaray ehelada darawalka mooto bajaajta ee shilka ku dhintay waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska iyo ehelada ay meedka u qaadeen xarunta hay-adda dambe baarista ee CID-da shilalka geysanaya khasaaraha kala duwan ayaa maalmahan kusoo badanaya magaalada muqdisho waxaana toddobaadyo ka hor gaari booyad ah oo isgooska ceelgaabta ku fariingoosta halkaasna waxa uu ku dilay ilaa iyo 3 ruux ugu dambeyn 18 ruux ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay wadanka Pakistan waxaana sii kordhayay tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka dhashay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay wadankaasi ugu yaraanse waxaa hadda la xaqiijiyay 19 ruux inay ku dhimatay kadib diyaarad nooca militariga ah ay ku tababartaan ay ku burburtay magaalada yaraada Ronda ee dalkaasi Pakistan dhimashada dadkan ayaa u badan rayd ku noolaa tuulo la yiraahdo Morke oo ay diyaaradu ay kusoo dul dhacday iyadoo holciisa taasoo keentay in khasaaruhu sii bato ciidanka booliiska iyo militariga ayaa xiray goobta diyaaradu kusoo dhacday si u helaan macluumaad iyo cadeemo dhab ah oo sababay burburka diyaaradeed afayeenka waaxda gurmadka degdega ah ee wadankaas oo lagu magacaabo Faaruq Buute ayaa waxa uu sheegay in 18 ruux ay hayeen dadka halka ku dhintay shirka diyaaradeed 15 kalena ay yihiin dad rayd ah oo dhaawacyo ay ka soo gareen dhaawaca oo 15 ruux ayaa waxa la dhigay isbitaal ku yaala meel u dhow magaalada caasimadda wadankaasi Islamabad ee Pakistan dhinaca kale waxa adkaatay in la kala saaro meydadka iyadoo dowladda Pakistan ay sheegtay in lagu kala saari doono baaritaanka lagu aqoonso dadka ee loo yaqaan DNA-da warbixintaas ayaa ugu dambeysay warkii fidnimada caaw onagatas midnimo